xiriirka dadweynaha kulli wada ogtiin waa albaabkii xafiiska naga looga soo galay waa wajigii xafiiska qofka marka horeeyo xafiisku yimaado waa meesha u horeyso uu arkayo waa wajigii waa afkanagii waa afayeenkii magaca xafiiska ku hadlayay marka tababarkan public relationka ee xiriirka dadweynaha ama isgaarsiinta communicationka waa tababarku maxaan rajaynayaa inuu socon doono muddo 2 maalmood ah oo maanta iyo berri ah marka xigta ujeedada tababarkani kolay aad buu ballaaran yahay oo qodob ka horeeya waa xiriirka dadweynaha saan u adkeyn lahayn qaabkaan u wajihi lahayn ay siiba shacabkeenu ay adeeg hufan ay heli lahaayeen iyo waaxyada xiriirkooga saan u adkeyn lahayn haddii ay la sii faahfaahinaya waxaa jiray qodobo press release-yadu caankay noqon doonaan warmurtiyeedyo naga soo baxa xafiiskanaga maadaamaan matalayno shaqaalaha dawliga ah aanu nahay iyagana afkoogii aanu nahay albaabkii looga soo gelayay aanu nahay wejigoogii waa in shaqooyinkan la dardargeliyaa oo siday weliba uga soo qaybgeli lahayn falowgeed waa inaan galo oo arrin muhiim ah ka qaybgalka dadweynuhu kolley waa arrin aad u muhiim ah saan wada ogsoonnahay dee adduunkeennu waxaanu ku jirnaa isbeddel xawli iyo globalization soo ma isbeddelkan xawliga maxay ku xidhan tahay bini aadmaha nolol maalmeedkiisa iyo siiba si ay ula jaan qaadi lahaayeen isbeddelkan xawligee ka hana qaaday siiba dowlad deegaankeena haddii la dardargarin waayo oo shacabka wax la fahamsiin waayo oo in iyaga loo qabanayo in dareensan lahaanshihii haddii meeshaan la keenay dhibteeda leedahay waxaan ku boorinayaa dhammaan shaqaalaha adeega shacabka inkastoo ay asluubtooda aad ay u fiican tahay oo ay tusaalo dad lagu dayda yihiin laakiin inay si hagar la'aan ah si wanaagsan ay uga qayb galaan tababarkan waa tababar aad u muhiim ah